kusoo dhawaada qaybta labaad ee kulankii xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo la yeeshay qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana. qaar kamid ah jaaliyada ayaa su'aalo dhinacyo badan taabanayay oo xaaladda wadanka ku saabsan waxa ay weydiiyeen xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. waa kuwan qaybtii koobaad ee su'aalaha la weydiiyay xildhibaanka iyo waliba sidii uu uga jawaabay. magacaygu waa Cumar. laba su'aaloodaan qabaa oo xaaladda wadanka waa nooga sheekaysay, laakiin nimankan oo nabadiidka markaa ka sheekeynaysay iyo waxay ra'yiga u taagan yihiin, waxaan aaminsanahay dadkeena meeshan joogo wax ka runa iyo wax ka beena labadaba waa dhici kartaa inay dad kale u shaqeeyaan. ma aqaan saa ugu dhiira karta jawaabtan, laakiin niman geed hoostood fadhiyo markaan sawirada aragno iyo rafaadka ay ku jiraan inay baabuur ina tareeya ay soo raraan oo wixii sooba ka dhaco kaleento all those chemical components isku soo xiraan, aqoontoodna mana haystaan. marka ma jirtaa oo waa jirtaa dabcan saa aaminsanahay, laakiin ilaa intay ku dhiira kartaa ina sharaxaad naga siiso oo tuunin siyaasiya dabcan waa tahay. su-aasha kaloon qabo waxa waaye xalane dowladda waa kaalmeen dabcan oo khudbooyinkaada waxaa ku jirtay ma laa yamliku quuto laa yamliku qaraaruhu, oo macnaha dowladda say waa ku leeyihiin iyo xoogaa inay wax amraan. dowladdii hore farmaajo ninka la yiraahdo Beelo wuxuu isku dayay inuu dhowr mar galo oo canshuur weydiiyo oo system ay arkaynay waxbana u shaqeey ways. marka nimanka marka qaar waxaa la yiraahdaa dowladda xalna looga taliyaa, marka arintaasna inay wax naga fahansiiso waa jeclaan lahayn. waa mahadsantahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Cabdullaahi. su-aashaydu waxay tahay dadka Soomaaliyeed siiba qurba joogta waxay soo arkeen doorashooyin badan oo wadanka ka dhacay. mar walba dadka Soomaaliyeed waxay qabeen yididiilo cusub. mar walba waxaa imaanayay madaxweyne loo hanweyn yahay, waa la farxayay, dad badan waa yididiilay qabeen. haddana intaan sanadba la gaarin waa la iska hanjabay. dadkaasi waa khudbado qurxoonaayeen, wax badan oo ummadda ka dhaadhacay u sheegeen intaan la dooran, haddana waa noqon weyse. Cabdiraxmaan muxuu uga duwan yahay? السلام عليكم. magacayga waa Deeqsiid. Mustawarsan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, wadanka waxaa ka jirto dhibaato aad u weyn. maaragtay wadankan wuxuu soo galay burbur soo qaatay more than 30 years. maaragtay overnight solution ma imaanayo, oo intii waa matter of physics. waa maaragtay every action has the same and equal reaction. wixii intay burbur qaateen in la eg iyo ka badan ayay qaadanaysaa maaragtay in wixii soo laabtaan. marka that's my comment. questionkii waxa waaye dhalinyarada yaryarka ah oo hadda maalin waxaan fiirinayay cunug yar oo shuuto loo geeyey oo dil toogashaa lagu xukumay oo dhalinyarada shabaab. markaan dhageystay waxay noqotay wax very sad because cunug yar oo hooyadiis waxay tiri 7 sano isagoo jiro shabaab qafaasheen way wateen in doctor inay ku soo sameeyeen, way soo brain wash gareeyeen, wuxuu soo laabtay asagoo argagixisay. cunugaas oo kale markii la qabto maaragtay xal ma tahay in dowladdu ay tiraahdo maaragtay waa argagixiso waa dileena. so that means marka haddii cunug kasta oo la qabto la dilo, wadanku waxa ka dhamaanaya youth oo dhan. dadka dhibka keenay oo argagixisada oo waaweyn oo maaragtay la yaqaano meelahay joogaan oo ilmahan lu gooyay oo ilmahan dhibaatada u keenay, yacni maxaa uga go'an dowladda? maaragtay maxay in laga qabto instead of maaragtay dadka masaakiinta. not only that, maxkamadaha markii shabaabka la keeno waxay u eg tahay dadka masaakiinta ilaa runaa fiican. Soomaalida waxay tiraahdaa maaragtay 4.5 marka mainly fiirisid 0.5 ka u badan wax la dilaayo oo maxkamadaha la xukumo. marka injustice aad u xunaa maaragtay meeshaas ka muuqato. marka maxay kula tahay arrintaas? insha Allah. magacayga waa Axmed. waxaan rabaa Ustaad Cabdiraxmaan inaan weydiiyo su'aal ku saabsan
doorashooyinka dalka anaga mar kasta oo doorashada ay imaato doorashooyinka la qabanayo siyaasi kasta waxaa ku jirto ajendayaashiisa waxa uu ka shaqeyn doonaa 4 sano soo socoto in awoodda shacabka lagu celiyo oo doorasho qof iyo cod la qabto haddana markii la imaado waqtigii doorashada ayadoo ama suurtagal u muuqata ama u muuqan haddana isla siyaasiyiintii kulli wada raba haddana ka wada hor imaado marka sidee looga gudbi karaa mana jiraan ururo bulsho oo dhahay anaga sidaas iyo sidaas aan rabnaa oo xoogan oo dhahay sidaas iyo sidaas hadaan la yeelin doorashada sidaan ku haboon dhahay wax go'aaminaya ma jiro siyaasiyiintiina ma is aaminsano oo mid kasta wuxuu is leeyahay ninkan doorashada hadda qabanayo doorashada caada ma qaban doono oo asiga sidoo ku soo laabo lahay uu ka shaqeynaa doorasho qof iyo cod kama shaqeyn doono marka si doorasho qof iyo cod loo helo bulshadana ay ugu laabato awoodda doorasho ay cid hogaaminayso ay ku dooranayso intee laga keeni karaa qofkii qabalahay doorasho iyo qof iyo cod sidee lagu heli karaa ilaa mar kasta qofka xilka haayo asigiina soo laabtaa looga baqaa qofka xilka haayo qof aan ahayn ma qaban karo doorashada marka sidee looga gudbi karaa xaaladan oo looga gudbi karaa doorasho qof iyo cod waa maasantahay nimanka la yiraahdo al-shabaab ma lala shaqeeyaa dabcan markii ay dadkan argixisada sidoodaba in ay dad ka faa'iidayaan shaki kuma jiro laakiin aniga ma aaminsani ayaga in inta la abuuray Soomaaliya lagu abuuray Soomaaliya wax loogu dhimaa dadka aaminsan maahay aniga laakiin dad ma lagu dhex darsanayaa dad kale ma ka dhex adeeganayaan dabcan every criminal organization ama hay'ad kasta oo criminal oo organized ama ha ahaat mid argagixiso ama mid ahaat mid argagixiso ahayn waa dad lagu dhex leeyahay laakiin hadda adduunka Soomaaliya laba jeer u soo jeestay markii kala oo dowladda ay duntay adduunku waa naga guuri waa naga tagay saa la socotiin 90 iyo wuxuu noo yimid labadii humanitarian wuxuu ku yimid dowladdan hogaaminaysay Mareykanka arrin humanitarian ay u imaadeen waxay faraha la galeen ku talagelin oo dawladda dhisaynahay dhahan ayagoo markii hore humanitarian u yimid balaaya ka raacday way isaga tageen dalka marka 2000 waxay soo noqdeen kowgii ee adduunka markale Soomaaliya tension siiyay waana markii 11 September ay dhacday oo la yiri Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha ay argixisada ay gabaad ka dhigato normalna waa ka dhiganaysaa sababtoo ah vacuum meel dawlad ka jirin cid kasta adeegayso oo imaanaysa marka 2001 haddana markale adduunka oo na soo daneeyay haddana 2010kii 8dii 7dii 6dii haddana burcadbadeedii yaa bilowday maxkamadihii islaamiga ahaa kacay adduunku way ka cabsadeen dabcan adduunkan qolaa ka talisa oo western power oo Mareykanka hogaamiyo waa inay rulkooda ku socotaa wixii ka soo horjeeda oo la karaash gareynaa saas ay hadbadeen marka maxkamadihiina luqadaasi akhri waayeen meesha waa laga saaray waxa yimid burcadbadeed haddana timid burcadbadeed haddana waxay qatar ku noqotay adduunkii isku socodkiisii xagga ganacsiga haddana markaa la soo farageliyay sinisdan marka waxa la yiri Soomaaliya containment policy ma anfacaysa macnaheedu containment-ga waa in dhibka meeshiisa lagu hayo bal dawladda ma loo dhisi karaa markaas hadda ay bilaabatay in western-kii safaaradihii galbeedka oo mid dalkiina hadda joogtaan ay weyn tahay ay soo degaan oo Soomaaliya la daneeyo dadkaas waxay ka simiyaan argixisada in la dagaalamo sababtoo argixiso qof ogol ma jirto waxay kaloo aaminsan yihiin badaysaa ogtii in dalkooda ay ugu imaanaysaba oo dhalinyaro badan oo ku tababaranaya dalkooda inay jiraan laakiin dad kale dad ku dhex leeyihiin oo dawlado qaar oo isticmaalaya ma jiraan dabcan waa niman iska furan oo cidii markaas dan leh isticmaalaysa laakiin hadda aniga ma aaminsan cid Soomaaliya hadda stability-geeda ama xasiloonida ka soo horjeeda oo diidan aniga inay jirto aniga shakhsiyan ma aaminsan intii karaankeyga intaan ogahay macnaheedu dawladaha dariskeena oo kale Kenya Ethiopia iyo Djibouti dawladahaas argixisada dhib ay u arkaan dheef uma arkaan waxaa ka duwan Taliban ka duwan oo Ruushka iyo China iyo Pakistan iyo kulli ay taageersanayeen laakiin waxay u taageersanayeen purpose of geopolitics inay ku jabiyaan Mareykanka u taageersanayeen laakiin Soomaaliya cid lagu jabinayo oo wax laga ridinayo ma joogto haddeertaan sida dalkaas oo kale ma ah oo la caawinayo because Mareykanka naftiisa Sofiyeedka wuxuu ku jabiyay mujaahidiintii markii hore marka haddana waa laga aarsanay taas marka waa ka duwan tahay marka Soomaaliya marka xaalad oo la iska aarsado iyo cid laga aarsado ma joogtaba oo shabaab loo isticmaalo haddeertaan qabiilada isdagaalayo ay heshiil aan nahay
sida marka anaga aan isku haysano inaan adduun khatar nahay oo adduunka uu nagu soo jeedo wax walba naloo qayilo oo naloo fadhiyo iyo fikirkaas waa conspiracy theory mana aaminsan aniga sideeda xalane dabcan shabacada hadda kale la naxariista shirkiisa waxa ku jirtay qaramadii midoobay waxa ay yiraahdaa qalin Mareykan ma tihiin qaramadii midoobay qalin Mareykan ma tihiin markaas ay jawaab waxay dhahan kula masruufka maamulka oo baxshaa ma han looga maarmeyn lacagta ugu badan ee bixisaa Mareykan qaranka UN-ka marka ninkii qarankaaga intiis u badan bixiya dabcan saameyn waa ku yeelanaya 70% miisaanadeen iyo 5 waa la kabaanay markii aan taas ka xorowno baan go'aankeena soo sheego way man la yamlik qutu la yamlik qarar waa iska caadi takale ayaga waxay kale ku leeyihiin waxa u joognaaba inaan talo in ka siino dawlad dhiska state building ka naftiisa aan talo in ka siinayna taas nafteedana meesha waa ku jirta anigu maraan la shaqeyn jiray ninka xogaha guud ee qaramada midoobay wakiilka ah 2 sano la shaqeynayay mandate-ka oo SRSG wuxuu kamid yahay dawladda Soomaaliya kala taliyo state building iyo peace building inuu kala taliyo safaaradahan taas aan u joognahay kuleeyihiin dabcan maslaxa la'aan ma qof muraad la'aan adiga ku joogeysana ma jirto laakiin dantii hadda la xaqiijinaa hadda ma taagnaba wadanka marka uu dawo oo xasila wixii dan ah laga yeelan karaa Abdullaahi wuxuu kaga duwan yahay Cabdiraxmaan waxa kaga duwan waa sheegay articulate gareeya dabcan qofka markii oo wax doonayo sax waaye si fiican u hadla si fiican u articulate gareeya laakiin recordna waa jiraa qofka recordkiisa qofkan principalkan oo aaminsan yahay ma ka yahay consistency qof oo ma yahay si joogto ah mabda'an u haysta ma yahay wala qiimeyn u baahan tahay mise qof maalintii la leexataba la leexdo waay oo maalintuu fursad helana fursadiisa raaca maalintuu fursad helin ka soo leexda miya recordka marka waa muhiim hadalka kaliya oo la sheegayo quruxda badan kaliya ma ah qofkan shalay maxuu ahaa marka uu xilka hayay maxuu soo u dhaqmay haduu baraan minister ah haduu madaxweynaha soo u dhaqmay maanta muxuu kaga duwan yahay haduu ahayn oo xil la siiyay soo yahay macnaheedu in recordka qofka in la fiiriyo anigu ila tahay iyo qofku inuu yahay legacy oriented qofkan uu qof dhaxal reeb iyo raad reeb iyo taariikh reeb muhiim u ah miya mise qof inuu asaga markaas xoolo iyo dhaqaale iyo power iyo xalow ayaa muhiim dabcan awoodda dawladda labadaas waa leedahay taariikh dhaxal reebna waa noqon kartaa choice-kaas waa qaadan kartaa power-kana privilege oo wataa in lagu heeso lagu bambeey garay oo lagu tumo cidaarad wax siiso cidaarad wax u diidani labadaba way yeeli kartaa marka it's your choice qofka oo xukunka raadinaya wuxuu rabay ku xiran tahay asaga iyo wuxuu halgamayo iyo wuxuu u taagan yahay runtii anigu waxaan leeyahay waxaan lagu qiyaasi karaa qofka dooya qof hadii dawladii timaado fursad ka qaadanaya oo tii kale fursad ka qaadanaya dee qofkaas waa la qiyaasi karaa wuxuu u yahay su'aasha oo deeq dhalinyarada ka soo goosanaysa nimanka sax waaye waxaan ba jirin badee dhibaatada haysta waxay tahay deeqo dawladdu ma hadli karaan hadda dawladii mihi laakiin dawladdu waa ka tirsanay xukuumadan ka wada xukuumadii mihi markaas baarlamaanka iyo mucaaradka dawladda ka mid yihiin laakiin ma hayso comprehensive strategy oo nimankaas lagu wajahayo ma jiro annaga dabdamis waa dawladda ku socota hadda inta dagaal ka dhacay qabo kana la soo qabtay laakiin dadkan niman ka soo baxaa in la kala qaybiyo dadkan argixisada inta la fiiriyo strategy ahaan loo fiiriyo la yiraahdo maxay yihiin dadkan horta maxaa motivate gareey maxaa wada dabcan qaar ideology wada fikra wada si in sheegay aaminsan waxa in sheegay aaminsan yihiin qaar opportunity u galaya fursaday ka arkaan power iyo resources ka helayaan qaar waxay u galayaan grievances ama waalidiintiisa la dilay ama qabiilkiisa la dulmay ama deegaankiisa dhibaato loo geystay oo u galay marka ayaga naftooda u baahan in la kala fiiriyo say kala yihiin dawladda inay xukuumadda inay strategy kala timaado oo counter strategy la yiraahdo oo nimankan insurgency ama argixisada lagula dagaalamayo kuwa la soo qabtay la yeelaya see macnihii loo kala qaybinaya awoodooda dabcan anigu waxaan aaminsan nimanka in la hadlo waa qasab ugu dambeynta wada hadal bay ku dhamaanaysaa arrintooda oo ciidan inta crash galaysa ka adkaa karta mana dhicin baa adduunka cid tiri nimankaanan argixisan ka adkaanayna oo guushaas gaartay ayadana maba dhici karto maba jirto lama sheegin wax u dhacay maaha axmed waa runtiis see qofkii xilka loo doortay doorashadii loogu aamini karaa asaa la rabaa dee ammaanada uu la yimaado in uu yiraahdo waxaan aasaasayaa ama dhisayaa ama gunta u dhigayaa qaab lagu heli karo doorasho dadka ay ku wada qanacsan yihiin ana aan ku tartamo oo asaga uusan isku jimeynaynin oo shaatigeeda tolinaynin waa waxa leaderka laga rabo badee moogta siyaasi iyo leaderna farqiga u dhaxeeya
qofka door inuu leader noqdo waa inuu dadka sifeera wuxuu inta ugu hagaajiyo yiraahdo aniga waxaan u arkaa in meeshii la joogay qaabka doorashada ee u dhaceysay in laga hormariyo oo qaabkan loo hormariyo dabcan qof iyo cod wax hadda hore gaari kara ma maanta in bari wax la gaari waxay u baahan tahay dhana wax badan ka horeeya ammaankiya ka horeeya telekoobkiya ka horeeya sharciyadiya ka horeeya dadka in la register gareeyo oo la diiwaan geliya ka horeysa in la wacyi geliya ka horeysa in dadka lagu qanco resultiga ay ku qancana ka horeysa hadda anaga doorashada kaliya lagu qanco waa mid madaxweynaha la doorto sababtoo ah howlkan oo kale la soo galaa sanduuqaas lagu ridaa dadka hortooda lagu tiriyaa qof walba marka waxay aaminsan tahay inaan la qaadan karinin laakiin wixii kale oo meesha lagu tirina aan la ogeyn cidda tirinaysa iyo guddiga tirinaya iyo ciddaan ogeyn de kuwaas waxay u baahan yihiin in oo si transparent ah ay u dhacdaa loo baahan yahay oo aanan lagu murmin doorasho ku imaanin soo u dhisaa marka qofka madaxda asaa laga rabaa dee soo ku keeni karaa waa inuu desire-kiisa rabitaankiisa waa inuu ka tanaasulo oo dadka Soomaaliyeed aamino haddii cod siinaya mar kale iyo mar kale laakiin qofkii markuu meesha tago wuxuu isleeyahay fursad labaad inaa hesho ma sahlana marka dee wixii wuxuu isleeyahay wax adiga keliya ku soo bixi karto sameey wixiina ma sameyn kariyo tabartiina ma jirto waqtiga ka dhamaanaa marka soo waqtiga ka dhamaaday iyo tabaran jirin iyo wixii dhamaaday le waxa fiicnaanada marka in taariikhdeena waa ku jirta Allah u naxariistay aadan cadda markii ay tartamayeen Cabdirashiid marna shaacir jimcaale tartamay finalkii marna waxay tartamay Cabdirashiid Soomaa marka Cabdirashiid tartamayeen fila Soomaaliya joogan cadda hataa ma joogin baarlamaanka mana aaminsanay codkiisa in la qaadan karo وانا لو تجو حالي لعق بدن من جناستا أتجو لعق بدن سيو هاي كمبين كوجل واديدي العين وبحيه نمان كانوا سياسيين أتجو لهن جوي نوب الله قادوا كديدي هذا ذلك عندنا وجستو أرتين الدور توله الدور شاء سده ورقي جارت وليه صون العق بحنين يا صون بحنين بالله قادي حلال أهم بحنين تقف سياسي الكلام مو بيجرو ما أنت يا سده ورقي مركا سوق قوري داير جيسي ما موجس كذا wiilkiisa mid kamid ah wiilasha la jooga markaas aad u walwalay oo yiraan qasaad maxaa walwalay kursiga madiga ninka oo luus gareynay maxaa walwalaysa marka waxa laga yaabaa in kursiga ay dadku ku siiyaan laakiin adaa laga rabaa inaad si u dhaqanto mas'uuliyad ay ku jirto aad isku dhajinin oo hadda xukun isku dhajiyo wax ka dheefayna hadda lama sheegin hadda madaxweynaha hadda jooga xilku uu soo maray sax waay doorasho ka shaqeeyay sax waay si fiican ay u dhacday sax waay asaga waa laga adkaaday waa kan goraajileed gari waa iska tagay hadda intii ka rabnaa anaga waqtigiisa markuu dhamaado doorashada inuu qabto haddii guuleystaan dad Soomaali doortaan ahlan wa sahlan haddii kalena uu irid ka baxo laakiin inuu dhaho doorasho aniga iyo shaatiga ogaa toolnaya markii hore aan qaldamay oo hadda mid aniga ay u aan toolnaya oo guddiga ana magacaabanaya sharciga ana degsanaya dastuurka ana bedelanaya qaabka loo qabanayo ana sheegaya teenda kuma noqonayo gaastanada madaxweynaha laba arin uga carara baarlamaanka Soomaaliya teendada sheega baarlamaankii horta ama teendaha lagu qabto ama meesha la keeno golaha shacabka meesha la keeno waa baarlamaanka horta waxa la sheegaa baarlamaankana ilaa hadda madaxweyne fadhiyo kuma soo celin kursiga horta si waa nasiib badan yahay intuu banaanka aadu madaxweyne ugu horeeyo mar la doorto waay laakiin baarlamaanka madaxweyne fadhiyo cod uguma celin kursiga تصرت عبسي وكقبها وحسلي أمين ممكن يسوع علي ويان يقبله لبنا ذاها لما قاعدة كردي أيده صندوق ورثة الوترنا يا هبل واعدي بوكس كاتري وسحوا عرفتين إذا كنت جوا على سعتين مركا لما دفكروا مركا دورشة دفكروا وسوي كسر وكروا وذيك الرب لها لكن مو فاتحين إن عمري سنة هذا واقعتي الفرصة واهلي إنه صومالو اللي بيرياس كيف فعنا له أو دورشة أو قفطة أو دجن waxaa jiray sidoo kale qayb labaad oo iyaguna su'aalo kale la weydiiyey oo xildhibaankuna uu ka jawaabay marka su'aalihii la weydiiyey iyo waliba jawaabihii uu ka bixiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halkan ayaan idinku soo gudbinayaa la socosho wanaagsan mudane Cabdiraxmaan horta waa ku soo dhaweynaa haddaan reen diyaaranahay siyaasi noo yimid oo hadda la ku reeyahay adaa noogu horeeyay ma soo qiimeeyay annaguna waa kugu mahad celinaynaa taas waa inta hore haddaan su'aasheeda gudbo waxa weeye waxa magacayga la yiraahdo qalbi nuur maxamed cabdinuur qalbi nuur marka haddaan su'aasheeda gudbo waxa weeye waxaan maqlay Soomaaliya nabad ilaalinta ciidamada u jooga ilaa 20 kun wey maxaa diidaya
mushaarkoodana waxaan maqlay ilaa 1,000 iyo ka badan bay qaataa calaa shakhsi maxaa diidayaa in ilaa 40,000 lagu bedelo oo min 500 qaadato oo la difaaca oo ciidamadeena iyo annaga bahalka naga dhasho Soomaaliya intaa weeye su'aasheedu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdiraxmaan soo dhawow. siyaasiyiin waa la kulmay laakiin siyaasigii ugu horreeyey oo dadkiisa la hadlahayo oon la kulmaa tahay. 3 su'aalood baan qabaa. maxamed magacayga maxamed. su-aasha koobaad waxaa weeyo mid iska general ah. wadanka Soomaaliya waxaa la yiraahdaa shidaal bulay horta shidaal malay war ma ka haysaa. midda kale Soomaaliya waan tagtagaa baabuurta gobolada aadaysa iyo lacag bay bixiyaan oo shacabka siiyaan. marka wuxuu ku leeyahay number bay wacan oo lacagta lagu diraa. waan weydiiyay waxaan yiri lambarkan maalin walba ma number baa lagu siiyaa. marka wuxuu yiri ma lambarkan aan last 10 years yaan lacagta ku bixinay. marka dawladana way ogaan kartaa dhankan dhaqaalahooda iyo soo helaan iyo hal number isticmaalayaan 10 sano iyo ka badan. sababta maartay dhaqaalahooda iyo xooda macnaha dawladdu waxa uga qaban laadahay. arrintaas inaad wax nooga iftiimiso waan rabi lahaa. midda kale Soomaaliya guud ahaan tan waa su'aal guud. dhibaatooyin badan baa iska qabsaday nin walbana meel buu saar. waxa weeye qabyaalada weeyo gaajada weeyo xasadnimo jirta. waxana waa farc waxana waa asal. waxa dhibka Soomaalida haysto asalka u ahna waxay aragtidaada bal inaad ayadana la wadaagto rabi lahaa. soo dhawaad Cabdiraxmaan Shukur aniga magacayga waa Abshir maadaama ka siyaasi cadkara 3 su'aalan qabaa. su'aasha waraysa waxay tahay marka hadda muddo waxaan ogaa 2 bilood ku dhawaada kulli horta amnigi waagi hore 22 ugu dambeysay ilaa hadda aan tagay waxa iska bedelay. waagi hore telefoonka been ku sheegmaayo warshada caanaha jaajana ku jira laga qaatay iridiisa haddana de kulli marka ka yimaadaan dalaamiga caada loo maraayay oo kuma santiin horta waxa ka qabateen isbedelka. waa midda labaad ee hadalka ka jirnay oo burbur aad u badan oo ah in macnaha dhulkan jaamacadaha iyo dhulkan maartay dawladda leeyahay wadaadha ilaa cesha biyaha ilaa maartay dhul badan oo la jajabshay oo dadkii laga qaxiyay ayuu xataa ku jiro cagaf la kariyay. saas markii laga qaxiyana de inta cabir isla maanta bari la saaray isla markii hore laga dhisaayo ma shakhsi baa dhisanayo mise dawladda mise shirkado. waa midda saddexaad maadaama adigu Cabdiraxmaan Shukur tahay aqoonyahan aad tahay sharax madaxweyne ma tahay sharax doontaa aadka meena. Assalaamu calaykum. bixil la yahay la hadeertaan oo dawladii lacagta bixi jiray Mareykan oo weyn ay dhahan anaga yar ma nihin qolo labaad EU ahay European Union ayagana sidoo kale dhahan. inta hadda aniga aan la socdo July ninkaas lacag looma hayo in iska baxaan waa dhici kartaa. laakiin waxaan ku sheegay 70,000 waa ciidanka Soomaaliya anaga aan mishaarka siino Soomaaliya. marka mushkilada tiro ciidan ma aha ama Soomaa ahaado ama dowladda federaalka ah waa tayadana waxaa ku jiro ciidankii command and control kiisi structure-kiisi dhismihiisi. marka ciidanka la dalacsiinayo ama garaado la siinayo in si cadaalad ay ku dhacdo musuqa in laga ilaaliyo oo xilka lagu bixiyo maaragtay karti iyo daacadnimo iyo qofkan inuu gaari karo maaragtay garaadaha uu gaari karo. yiri askartu iskoolkii la mid yihiin haddii la yiraahdo aniga waxaan ka soo baxay dugsi sare iskool la jirin ka waran. aniga magaalada degtaa waxaa raay dugsi sare ka soo baxay iskoolna ma leh. marka dadka si ku aaminayaan in dugsi sare ka soo baxday magaalada iskoolku ma yaalay dugsi sare kuma yaalo moogta. marka askarigu waa wuxuu ku dalaacaa system uu ku dalaaca ama ahaato aqoon iyo xirfad ama ahaato halyeynimo iyo geesinimo u geystay ama ahaato dadoo command gareeyo control. marka dayac weynaa jira marka xagga oo structure-ka iyo tirada iyo tayada ciidankeena xaggiisa ama xagga sirdoonkana nimankan hadda nala dagaalamayo aad ay u yeelihiin ciidanka Soomaaliya markii loo fiiriyo. laakiin saddex waxay ayaga xoogga saareen annaga weli nuqsaana ugu jirto dhinacana ugu jirto. waxa waaye ko doctorinka qofku u dagaalamayo wax u dhimanayo
oo dee waa loo soo sheegay hala soo qaldo ama brainwash maskaxda laga soo qaldo qofkan waxaa u dhimanaysaa diin marka qof kasoo horjeeda asna wuxuu u dhimanaya waa inuu yaqaanaa midda labaad waxaa waaye command controlka ama disciplineka askariga meesha istaag la yiraahdo waa inuu weli istaagnaado anaga dee askarta waxaan kusoo marnay qaab kale oo national service ah digtoono waaye markii naasta lagu yiraahdo bes aana sakartaa macne meeshii lagu istaajiyana ka dhaqaaqdo maaha askari waa saas marka disciplineka waa iyo disciplineka marka waxaa soo hoosgalaya command controlka strategy kala sarreynta wixii dhan in marka waa shaqo adag waaye shaqo adagna waxaa ka dhigaya askariga waxaa la rabaa inuu dagaalamo in la dhisana waa rabaa normally ciidamada dowladaha markay dhisayaan ayagoon dagaal ku jirin ciidanka dhisaan marka fursad waaye laakiin hadda adiga waxaa laga rabaa ciidanka inaad dhisto una dagaalamo marka waa challenge aad u weyn waaye runtii aan sahlanayn laakiin haddii la helo leadership daacad ah xilka aan ku bixinaynin musuq iyo eex iyo hebela xigiyada hadda garaadaha ciidanka dhan waxaa lagu qaataa xildhibaana qaada liisoo geyna waa lasoo wada dalacsiina saasay ku baxaanba marka waxaasna wax wada ciidan oo ku dhismi karo ama ay dowlad ku dhismi karto ma aha andaas waa ciidankeena tiro badan macawisli loogu baahanaya qawaa'il dadkii qabaa'ish loogu baahan yahay marka waxay u baahan tahay shaqo adag oo howl adag in laga qabto wasaaradaha ka shaqeeya ama kuwa arrimaha gudaha ama kuwa amniga ama kuwa difaaca ama taliska nabadgelyada ama taliska ciidankana waa in dad professional oo karti leh loo dhiibo oo ciidanka maamuli kara oo kartidii iyo capacity ciidan ay ku maamuli lahaayeen iska leh macnaheedu waxaan taas ka wadaa annaga ciidan waa lahaa jirnay tayeela oo dhisan wax kastoo sameey hore lahaa jirsan hadda waa soo celi kartaa macnaheedu wax ku diidaya malaha laakiin waxay rabtaa determinationki go'naashihii daacadnimadii iyo waxay rabtaa kartidii hawshaas lagu sameyn lahaa maxamuud dalka shidaal ma leeyahay waa leeyahay systematic survey la sameeyey dalka inuu shidaal leeyahay la sheegay oo xoogan weliba shidaal keliya maahane gaasna waa leeyahay gaas keliya maahane macdantan hadda reer aartiga la yidhaahdo hadda adduunka la isku wada haysto oo waxaan laga sameeyey jibyada kombiyuutarada ama maaragtay waxaan diyaaradaha droneska ay ku shaqeeyaan ama electronic waxaan ay hadda khalaqaan casriga teknolojiyada casriga ku shaqeyso oo dhan Soomaaliya inay leedahay bariga Afrika guud ahaan Soomaaliya inay ku jiraan la isku raacsan yahay laakiin keersina waa noqon karaa lacnad dhibaatana waa keeni karaa sida wadamada qaar hadda ka dhacday wanaagna waa keeni karaa labadaba iyo sida wadamo ku tanaadeen waa jiraan wadamo ku halaagsameen waa jiraan yani shida inaa leedahay macnaheedu inuu wada khayr yahay macnaheedu maaha sida loo maareeyo ku xiranta waxaa tiri number dadka say wax kugu wada sheegayaan maxamed run maaha qofka kula halkaa nambaran wax ku tuuraa marka war kuu sheegayo macnaheedu inuu waxa kuu sheegaa run tahay maaha laakiin dowladda iska dhid wax badan oo lambaraa waa xireen oo nimankaas lacag lagu siiyo argagixisada waana very delicate sababtoo ah nambarada iyo akawnada baraafida bangiga iska leh dowladda male bangiyada bangiyadana waxay ku qasban yihiin in data protection ay raacaan oo qof kasta ay ilaaliyaan waa ku qasban yihiin waxay kale ku qasban yihiin way cabsanayaan hadday nimanka argagixisada lambaradooda dhiibaan ayay qarxinayaan soo ma hadee dowladdii protection ma sii karto bangigii marka waa delicate laakiin at least hay'adaha maaliyadda iyo dowladdu way wada shaqeeyaan akawno badan nimankan waa laga xiray laakiin negligence waa jiraa mar walba oo laakiin ani ismali hal account lacag lagu diraa inay runta aniga ma aaminsan kana way bedelaan nimankan way bedelaan hadda markii laga xiranayo physical u imaadaanba lacagta waxay u soo doontaa si ay waa socday gudaha imaadaan asalka mushkiladda waa dood furan laakiin aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay dowladdeennii waxa dumiyey waa inta afartii qodob oo sheegay hore faqrigan iyo gaajadan iyo waxaan iyo waa natiijo laakiin ku-takrifalka awoodda iyo hantida musuqa iyo eexda way waxa dumiyey anaga dowladdeennii haddaana kuwaas aan laga kabanina sidii la ahaanaysa anaga qabaa'il aan nahay dad qowmiyada daris nala ah oo dowlado leh oo anaga qabiilkaaba roomba dad qowmiyada jiro oo kala jinsi iyo kala diin iyo kala cirqi wadda ka meeqa qowmiyada ku nool يعني مشكلة إن كلا دوين هاي معها أو كلا قبيلة أنا هاي ولا أنا هل قومية من هاي قبيلة أنا سوما أنا مركز قبيلة مشكلة معني صح معها لكن وأنا قرأ هدي سياسي واستعماله وضعه كعسل ما هو كعسنا باور هو سياسي مركز هدي باور كأود دول النمذج الحاجة وعدالة لهله وضدك ملاحظة ضدك أوسن هذا وفرصتها الشقة الله أوسن هذا وفرصتها دول إلى هذا الله أوسن هذا وعدالة الود ذاله
dadka Soomaali dadka ugu mushkilada in la xaliyo ugu dhibka yar waaye sababtoo ah wixii ummadaha kale ay lahaayeen oo kala duwanaanta diinta iyo cirqiga iyo dhaqanka iyo luqadda iyo midabkii anaga ma qabno scarcity of resource wadamada qaarkood waxaa isku dilaya resource-ka yar anagaan resource yari ma qabno Soomaalida dhulkana waa naga weyn yahay kheyraad ku jiraane waa naga badan yihiin waxay u baahan tahay maskaxdii lagu maaray lahaa unbay u baahan tahay marka laakiin aniga mushkilada waxaan u haystaa inay tahay taas inay mushkilada tahay mushkiladana waa labo marna waa asalka marna waa natiijada haddaa qandhan tahay macnii qandhada ma aha cudurku haya wax kale waaye qandhada waa wixii ka dhashay cudurku waaye dhakhtarka marka wuxuu ku qasban yahay qandhada inuu kaa jiibo cudurkana baaro laakiin haddii u qaato inay qandhada cudurka tahay ma saxsano qofkaas diagnosis sax maaha amniga abshir amniga muqdisho sax waaye waa ka soo fiicnaaday sidii hore maaha waa ka fiican yahay xukuumadda creditkeeda waa howlahaas wax weyn ay ka qabtay inkastoo madaxweynihii la sigay oo nimanka ay dil rabeen oo markii la fiiriyo dadka qaarna waxay isku qaldaan nabadgelyada iyo amniga iyo xasilooni saddex kaliya nabadgelyo amni iyo xasilooni saddex farqi waqti uma hadda aan ku sharaxo laakiin nabadgelyada waa arrin amni waa arrin xasiloonina waa arrin marka saddexdaba waa kala duwan yihiin laakiin xoogaa horumar dhinaca nabadgelyada ah waa jiray laakiin amni dhammaystiran oo dalka oo hadda jiray ama caasimadda ka jiray ma jirin xasiloonina warkeeda daaba dhulka la boobayo maalin kastaan ka hadalnaa anaga dowladdu waxaan u aragnaa waxa ay samaynaysa inay dhulboob tahay hantidii dowladda Soomaaliyeed ay lahayd in lagu takrifalaayo dad ganacsato ah laga iibinayo siba weli aan cadaalad ahayn loo qaybinayo sidii sharciga oo qorayna aan loo maraynin markii hantida dowladda ay gadaysa dhulka dowladda ay leedahay oo dad masaakiin laga barakicinayo dad kale oo ganacsato oo hanti la siinayo lagu nasnuujinayo dhulkan ay dowladdu iska leedahay dowladdan ay lacagtu dhacaynin accountkeeda isa ku dhacaynin ana dhulka ay dowladda leedahay oo dhulkii dowladda la gado waa inay lacagta aadaa accountka dowladda inay aado waa sida saxda ah oo budgetka dowladda ay gashaa oo miisaaniyadda markii baarlamaanka la horkeenayo ee madaxa hantidii la gaday ay ku jirto ma ku jirto adeertaan meel la geeyo ma naqaano madaxweynaha daawid wuxuu ku leeyahay helicopter iyo ciidamo iyo waxaan ku soo gadaa dowladda ugu adeega dowladda ugu adeegaysa no problem budgetka dowladda ku dar waxa dhul ka jira processkiina mar la gaday processka maxaa waaye waa in dowladda uu ka maaranto la hubiyo inay ka maaranto hadda dhulkii dowladda meel degtay inay wiisaan ka baqaada dowladda haaf kamid inay waxay ku ijaari ku jiraan yaa wasaaradaha dowladda haaf kamid ijaari ku jiraan marka leeyahay dhulaa laga maaran okay in laga maaran in la cadeeyo in wasaaradda maaliyadda ay qiimeyso dhulka qiimuhu yahay in la auction gareeyo oo la naadiyo dadka u tartamaan si fair ah ama hargeysa ka imaaw ama ka imaaw maaragtay Kismaayo ka imaaw xamar ka imaaw waa inaad u tartami kartaa muwaadin Soomaaliyeed aad tahay cidii u aragtaa inay lacagta ugu fiican dowladda u keenaysa laga gado lacagtaasna lagu shubo bangiga dhexe oo miisaaniyadda dowladda lagu daro marka processkaas lama maro arrintan waa cambaarayna waa kasoo horjeednaa waana xun tahay shaqa abuurka adiga musharax ma tahay haa وسؤال أساس معين وهي سيدا كمبينكي لا شغال هاد سو ديالي أبشر يا إيه إنديانو دنبا كل يوم ما شغابورك سيد ورسمه شغابورك لأن يرد ووحى لأن يرد وضدك أو بدن وفهمتي هذا بالشدة إنه مجتمعنا شغاب بدن الله ما أبورو حشغلها أو أبورو برافة سكترك أنت يرتها لأن يرد إهيستان وحي كلا إمعدان شركتها gaarka loo leeyahay dawladda shaqaaleeda ma badna dhowr kun waaye inta ay shaqaaleysiiso dawladda ma badna runtii shaqa abuur marka in la sameeyo waxay ku xirantahay dawladda inay dakhli hesho dakhligaasna dee waa inuu ka yimaado ama cashuur gudaha ah hadda annaga dhaqaaleena xoogiisa wuxuu ku tiirsan yahay lacagta idinka dirtaan oo dibadaha laga diro iyo lacagta internationalka ay ku caawiyaan dawladda labadaas ay u badantay gudaha waxaa laga keenay 20% canshuuraha laga qaado ma dhamo ayana si sax loo maamulo si adeegii shaqo loogu abuuro marka taas u baahan in dakhligan la kordhiyo si saxana dadka oo fair loogu maamulay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxa jiri warlord dowladda waxa haysi jiri warlord dowladda hadda carta markii la soo sameeyay Cabdiqaasim ugu horeysay warlord haysi jiri ma xasuustaan musu Suudiya ismaacati aan caydi warlord haysi jiri tii Cabdullaahi Saasay
ولولا إسهايين مركز المحكمة إسقطتين بقى دولة كده بيصير فدرات أصلا ما يسمى دول قبلية وحا إسهاية دولة ده هذا قبل كده ممكن ترسيها ماشي إسهاية ترى محلي يعني قبل كده إسهاية كواي ما كاليفورنيا ها كاليفورنيا قبل كي مالك سيوصل ترسنها أركان والله كاس واجرة لكن أيها وحين نقول شرعي على الرعاية شرعي ليه شرعي كلا حدية هذا يسقبسان قفلنا كي مدحونا المحكمة دي هذا يعني marka aan lagi sharcigiina lagu socdo dastuurkii awoodaha kala siinaya dawladda goboleedka dawladda federaalka ah ay kala cadeeyo oo waxa dastuurka uu qabiyo u yahay aad uma kala cadda maxkamadii dastuurigeeda kala go'aamin lahayd madax banaan inay jirto oo dheelaheed dawladda goboleedka qaldan ama dawladda federaalka saxsan intaas ka horne dawladda wali sovereignty waxa dawladnimo ugu muhiimsan ee dawladda u jirtay waxa waaye monopoly of violence waa dawladda ayada inay haysato